قرابة السلام حافظها كان صوت سلام يا كلها أوكي حافظت بنت تقلي فكانوا بلان كان كسر يوحنا كوري ولا ضو قال أنا بدي بدأ كوسني وايه كوري فرانك فايلا صعدة إلين ماشي والله فرديا قرب الله بكو قيلس هي يا وحوي نيجي فناك فرانك فايلا صعدة صاحبك يا صو سوق لي بلين ما هي الجودين بلين هي ماشي ما والدي ده يا والله قيسين ياي والله قيسين ياي mid un baa kaa qori buu kongareystay هي yah xagga faliiso buu yidhi هي الله يرسو mar waa sidee ma faliiso waan faliistay هي heesaad noo qaadaysaa caawa bir لايف life ha هي mid ka mida dhalinyarada meesha fadhiyaa warka franka saala oo kiibuu kula jeestay qoriga kiiba orad albaab ka baxay هي marka بوسينك نحن وينه war naxdin weynaa war maxaa isiri ها niyo ragga asxaabta noqonaya isla soconay Inta markii muddo ka watay, ma nin maxaa kaa reebay malaha waxa lagaga reebay sidan baa ملك موت يا بك والله قابته هي war ninkii baa lii baryay markii هي نيكي hees baan qaaday اسكو فضيح يا عبد الله هستا ايضا كل قوي هستا allo allo aligo allo 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 ka galay qalwo dareenka xashaqawo ayaan la kulmay marwo qurux la siiyay cawo intaa markaan eri اه ayuu bes bes وافصح انت adiga deji baan caawa waa inuu xaqalano maadaama meel cusub aan soo degnay هي yah هي kii weydaa tukubaya dee soo tukubaya kii buu raabo imanaya هي waniyo reerkii caawa وحبي قريه waxbay hadal hayeen waxbaan qabanayna bay leeyihiin واي واي caawa balesalaale caawa oo ugu soo socdaa هي markaasuu leeyahay wareerku ma miyay shiraysanayaan mise way sadqaysanayaan هي ya هي kor haddaan buu yidhi labadaba aan midnaba aanu waa gelayn ها waxba laga eegay maba sii waraysan buu جاوبتي شرسي واي marka wankii weydahabaa heesta qaadaya isagii baa هي oo le wankayga cad oo hanlaaxin weyda hadda lagu baxaaye ويدا هذا لو بحاي barurti wadkaaga ورث وتاوي waxaan kaaga waani jiirka وحكاوي وانا شركه wadaad baa reerka Wadaad baa jooga reerka wadaadka iyo wanka lama kala karo ها ها wardigii waxyaa hilbaysan واحد بيسن indhaha uu ku weeciyaay انه كوي عيال ayuu wacdalaaf ku sheegan Ayuu wacdalaaf ku buka sheegan. iyuu ku sheegan Ku sheegan. wanka sidaa Ah. dhagaxa Ah. cad ها si aad u cadqaba lurkiisa سوا عقبال لوكيسه warmaha daran u afaystay ما هذا انه افرستي wacdooda uga badbaado وعدو تقبل بعد adoo gudan waajibkaaga هذا قدوم واجب كان in waxtarkaaga muuqan اي وقت كان مقن taasaa waxay galaysaa markaa ها tii bini'aadanka awal wan baa ka ها sheekeynaya ها اي وقت markaa u leeyahay yani haddaad adoo xitaa waajibkaaga gudanaya ها in waxtarkaaga اي وقت كان مقن yaa la oran de war calasow war wax buu qabtay yaa waa lagu waayi de wey macnaha ويا dad gacan ka dheeray sida u egtahay de ها وقتها ah انت هست dadku idoo Aha. aan maqashin qaaciya bal in noqat idoo wankayga cadow hanaaxin weyda hadda lagu baxaaye barurtu wadkaaga weye wadkaaga weye barurtu wadkaaga weye waxaan kaaga waani jiirka wadaad baa reerka jooga wardigu waxyaa hilbaysan indhaha uu ku weeciyaay ayuu wacdalaaf ku sheegan si aad wacadqabe lurkiisa warmaha daran uu afaystay wacdooda uga badbaado adoo gudan waajibkaaga ayuu waxtarkaaga muuqan wadkaaga weye wadkaaga weye wadkaaga weye barurtu wadkaaga weye intuu wasamood baryaayo ama xaqu wehelhelaayo warkaayuu kala cadan warkaadiyuu kala cadan ويا حس halka ay jooji faanada nimca jaama ee Djibouti maamul Djibouti ayaa qad ku jirta telefoonka koodhe sheekan ku qarnay haye bal nimca aan weydiiyay nimcay dadna maqlayso ee heestan wankayga cadoo hanaahin ee xasan wada u qaada faanadu in baa tahay waxay kula muuqataa anti waa sidii xasi marka dhigeysta heestan maxaa kaga soo baxay horta marka u horeysa waxa weeyaan dadka oo dhani hees ama ku macaarida ha ahaado ama ku maxaafida ha ahaado wixii la qaadaba xagga ay jecel yihiin bay u duwaan waaya fanaaniintii waxaaba ku dhacday wax alla wixii aad qaadidba haddii meel alla meeshay dadku jecel yihiin loo duwayo ha dee halkeedina layska aamustaaba la qaatay wanka naaxay iyo rida naaxday iyo waxa naaxay
وحلا قبات إسحل قانتيو حالتي أتكيتسو حيرسي وحور العين لا يسوحلو حسدكيو جالي قمرنا حاشورا وحلا قبات إسحل قانتيو حالتي أتكيتسو حيرسي وحور العين لا يسوحلو حسدكيو جالي قمرنا حاشورا وبي وحافدي أدوي حمستين نوبات ونوي وحمالتو وبالحق الداع لهين وبي وحافدي أدوي حمستين نوبات ونوي وحمالتو وبالحق الداع لهين intiini la socotay qaybtii koowaad ee barnaamijkii aynu ku wareysanaynay fanaanka weyn ee xasan wado waxay inoo joogtay sheeko xiiso badan oo ahayd sheekadii isaga ugu wasalka badnayd taasi waxay ahayd riwaayad uu la jilayay aktarkii allahu naxariistay weynaa ee gaafane markaa bal halkaan ka ambaqaadna sheekada xasanow dee waxay noo maraysa sheekada adigii gaafane allahu naxariistay gaafane dee nin jiraayo ahaa qatara laakiin adigu sheekadaasi dhabbay kugu noqotay sida kaa muuqata wejigaa marka la akhriya bal nooga dhac sheekada sheekada igu qosol badneed gaafane waxa ahayd riwaayadda wuxuu ku matalayay nin xafiis ka shaqeeya oo ninka direktaarka ama agaasimaha loo yaqaano uu xooghayn u yahay dadku markay yimaadaan xafiiska marka la weydiiyo direktaarkii war aawa agaasimihii la yidhaha ma ninka xaloo dhan duqadda iska dhigay xaloo dhan soo jeeday maxaygaa iska dhigay iyaad raadinaysiin buuri war duhurkiin buu yimaado kaafiyan buu cabaa iska noqdaa buuri waaya shaqaale wuxuu ku leeyahay qofkii meesha yimaadaba saasuu ku leeyahay buuri haye dee ninkii baa warkii maqlaya agaasimihii haye dee wuxuu ku leeyahay saaxiibow shaqadu waa bannaanka haye waa la eraya waa la eryahay waa gaafino la eriya gaafino la eriya haye wuxuu xaafadiisii ku soo noqonaya haye hooyadii aabihii haye markaasuu leeyahay waa lasoo eriyay haye ya haye markaasay dee kulley ooye waa beero waxay tiri odagiiba ku tiri ninka ku celi shaqadii shaqada ku celi wiilka haa waxaa la hayaa mid fadhiga ku cuna oo wixiisa qaata waxaa la hayaa nin ashqa tigi oo wixiisa qaata aduu mataada luqadda hooyo ya mataada biyo ka dhacaya kaxaabay tiri wiil ku celi markaasuu yidhi odagii mar hore lubban intaan basma aan ku duubay ayaan celiyey oo u bukay aan mar hore sheeko kalaan yaan u alifay waan ku celiyey dee wuxuu yidhi shaabayga biyaha haygaga ridine ninkaa iska joogay iska joogay gaafane muxuu leeyahay marka gaafane wuxuu leeyahay asaga bartiis wuxuu leeyahay aabo dadka badh waxaa la yidhaahdaa buu yidhi dadna waxaa la yidhaha buu yidhi war naga daaya kuwan waa lagu dhaafsadaa buu dadku saddexdaasi kala yihiin inagu waa inaan saddexdaa aan ku jiro labadan uu ku leeyahay naga daaya laleeyahay oo bishaarkooga iska qaata haddii kale ku leeyahay qaadkaygii barjahaygii wax walba waa inaad meel ii saartaan gurigaa gubayaa buu iska eeg waaba gubayaa kulaha go-aan muxuu qaatay odagii oo hooyo aaska isaarayso odaygu wuxuu qaatay bal wuxuu yidhi bal dib baan kugu baalbaali baan kuu raadinay halkaa iska fadhi waxaagiina dee hooyadaa ka qaado buuri markaas habartu leedahay maad aragtaan aabuhu inkaar buu leeyahay hadalka ka yareen ya dee riwaayadda dhexdeeda waxay socota isagii baa ilmo dhali doona oo guursanaya bu ilmi yaraabaa hadlaya waana caanahayga waxayga warkaasuu qelaya dembiga abayaa ka gala ilmihiigu qasab badna mucjiso sida ugu mudacay aabihi sidii oo kale ilmihiina ugu mudacay sheeka xiisa badan ahayd waaya xasan waxaan rabaa inaan mar walba ku weydiiya aan saaxiibnahayo leeda roble waan roblo websiteka leesayda.com qoran mar walba wuxuu soo yidhahdaa waxaa wejisa xasan wado heestan leeda bal ayaan wuxuu leeyahay malaha adiga 94kii 95kii 96kii qisa asaga soo martay ahayd bal maxay indhuhu ka eegayaan bal muxuu afkan xili sheekadan waa sheeko jacayla heestan ayaan leedo heestii ugu horreysay wey u qaado waa sheeko jacayla isagay ku dhacday
gabadhaasi jacaylkaas jibuuti dhama laga wada ogyahay maxaad uga jawaabataa dad badan waxay yidhahdeen inuu ninkaas markuu mid yahay yimaado heestaas si us dhaafiyaa waaya ya waaya dee run ahaantii qisadani nin saaxiibkay ku dhacday waaya markay qisadii ku dhacdayna anagaa heesta ka samaynay heestii ka samaysan haa Way. milaha waxaa iska lahaa nuur daalacay beedka hore nuur daalacay baa lahaa beedka labaadna nin mustafa cumar ciroole la odhan jiray waaya laxankana waan wada samaynay waa wada samaysan kadib markaan heestii qaadnayba dee shacabkii ha ayay yidhaahdeen oo ninka see ku dhacdo qisadu xasa wadda ku dhacday haa waaya marka nin saaxiibkay ku dhacday laakiin aniga iguma dhicin heesta ayaan Ah. waan uguli doonaa dadweynaha waan u ciyaarayaa awaan rooble saylac.com waan u ciyaarayaa intaan u ciyaari ka hor adigu bilaa muusig bal in yaroo ka mid ah inkastoy ay ayaanayaan aqal yeelatoy ubadana dhashoy tahay hori kale anigoo ogsan kama aamuse waa amar alle anigoo ogson kama aamuse waa amar alle bal maxaynu kaegayaan bal muxuu afkuna kuwa mahnayaan Waayahay. inkastoy ay ayaanayaan inkastoy ay ayaanayaane aqal yeelatoy ubadana dhashay tahay oori kale inkastoy ay ayaanayaan inkastoy ay ayaanayaane aqal yeelatoy ubadana dhashay tahay oori kale anigoo ogsan kama aamuse waa amar alle anigoo ogson kama aamuse waa amar alle anigoo ogsan kama aamuse waa amar alle anigoo ogson kama aamuse waa amar alle maxaynu kaegayaan bal muxuu afkuna kuwa mahnayaan bal maxaynu kaegayaan bal muxuu afkuna kuwa mahnayaan aan kusoo laabana barnaamijka heesta ayaan ka dhacnay waxaan doonayaa waxay kugu naxdinta badnaa ku soo mara intaan nool wallaahi waxay igu dhaxdi badnayd ha waqtigaan waddanka soo galay ha waddankeedii ma sweden sweden ha ayaa waxaa niyow waa inaad waddanka la qabsatid kabjoogo waa inaad la qabsatid kaasaa ilbax tuulaa tahay gaadiid baa waqaatay gaariyaad khayaarataba haa haye waxaa yidhi waa inaad iska sii tababartay jidadka maxayga kulli aad kala baratid waa inaad barataa inkastoo marka hore diro wal iska hafan iska ahaa way haddana dee dhul ah la yimid dee caasimadoo dad horoo maray ha jidadka ku kala baratid baan soo mugtay aha dee go and back gaarigu mad highway la fuul haye meel qalada geli dhulka xitaa ila booliska xitaa qabtay mugta haye waa maxay saa u socotay waddanka la qabsanayaa baan ku ilaa mugta haye markaas yiraahdaan mar dambe kugu aragno Iska jir. oo golaxayna haye waa aduu habeenada ka mid ah magaalada Gothenburg jooga mhm ayaa yiri nin saaxiibkay wuxuu yiri waxa soo degaya nin family ahaayeen mhm aan doon waa kowdii habeenimo haye
Gothenburg iyo Stockholm inta isku jiraan Oh. waa ilaa 6 saacadood moogta ha highway-gii baan soo qaadanay haye waa nin saaxiibka Jarmal la yiraahdo haye iyo nin kale oo isna nala socday oo xaaji la yiraahdo haye highway-gii baan soo qaadanay ajalad baan noo socota haye haw saan u soconay ha ayuu gaadhiga nagala baxay haye xilli uu nagala baxay iyo xilligan anigu waa maan guur hadda did haye korma ku guuraysa dhakhtarka ku baraarugay maxaa lagu lahaa 3 shay kadib ha iyaan ku soo baraarugay haye maxaa lagu lahaa subxaanka markaan alaabtii sanka maxay gaga xiran war waa maxay meeshaad joogtid haye war maxay helay maadan ragga dul taagnaa haye markaasay yidhahdeen war gaari baad wadato saasaad u socoto ha sidaan baad dee gashay waa la xafidsiinayay mogta bisinka waqtigaas igu naxdin badneed maxaa ku gaara markaasi wax bala lama gaar laakiin qortaan wax ka noqday hadda ha qorta ka dhaqato bisinka intii raggii kalena waa jabeen taasi waa naxdin iyo bar naxdintii ugu daray adduunka weeyaan soo bisinka marka waaya waa xillaa gobaad isxilqaantay oo xaaladii adkayd soo xeerisay waa xuural cayn la isoo xulo xasidkiyo jahliga marna xaasha oran waa xillaa gobaad isxilqaantay oo xaaladii adkayd soo xeerisay waa xuural cayn la isoo xulo xasidkiyo jahliga marna xaasha oran hubi waa xaafidii haddooy xamasteena nubaad unooy u xamaalato ubaal xagal daac lahayn hubi waa xaafidii haddooy xamasteena nubaad unooy u xamaalato ubaal xagal daac lahayn waxaan usoo laabanaya qodob ku saabsanaa intaas fan ku jirtay dee waa kanoo markii fanaaniinta heesayaan soomaaliya waa tagta adiga qaar baa bamba loo dhiibayaa hadiyad meeshii dee waxyaabaha hadiyad la sugay jiray saacad iyo koofidii wax soomaaliya markaad tagtay maxaa kugu yaab badnaa ood la kulantay wixii ugu yaab badnaa waxay ahayd habeenada ka mid aan la joogay magaalada marka hadda aan sheegayn ayaa hotel aan deganayn baan nin saaxiibkay oo isna ayla deganaa ayaa yidhi waa soo leersanayna ilna marka haye bal aan soo qaadano haawadaa soo qaadano waa soconay haddaan buu yidhi qaraabo salan xaafad halkan aan soo salaamaya kulaha okay xaafaddii baan tegnay markaan banaankan ku sugay waxaan ku yidhi orodoo gal anugu dibaddaan kugu sugay wuxuu ku yidhi fanaanki baa ila socda ilen meesha waa la fadhiyaa qolo badan baa ku qaylaysa haye ya wuxuu yidhi fanaanki baa ila socdaa saxaabkiiga soo soo geliya bal ilmaha haye gudihin baa la geliyay haye meeshan waa wada didaa waa la hubeysan yahay waa la hubeysan yahay mid un baa kaa qori buu koongaraystay haye ya xagga fadhiiso buu yidhi haye ala yarsu mar waa sideen ba fadhiiso waan fadhiistay haye heesaad noo qaadaysaa caawa life ha haye mid ka mid a dhalinyarada meesha fadhiyaa warka franka saala kiibuu kula jeesta qoriga kiiba orad albaab ka baxay haye marka businka naxdin weynaa war naxdin weynaa war maxaa isiri niyo ragga asxaabta noqonaya isla soconay markii nin maxaa kaa reebay malaha waxa lagaga reebay sidan baa hadda malika muudka yaabay ka wadnaa ka taabto haye war ninkii baa lii baryay markii haye ninkii hees baan qaaday heesta fadhiya yaado ma qaaday heesta eedo dad lagu way heesta allo aligo allo ka galay qalwo dareenka xashaqawo ayaan la kulmay marwo qurux la siiyay cawo intaa markaan eli ayuu bes waa fasaxanta adiga deji baan ku qori ilaahay dad qalo ya wallahi gado waa sidii waa kackaco haye marka habeenkii saasaa ku baxay markaasay raggii mesh joogen raalahaw wal fulaankii baad ka cabsiisay warsan sidma saas kalama sameey marka ya xaal baan bixinaynaa bay yidhahdeen marka subaxii bay ii yimaadeen
way raali geliyeen taasina way ku dartay شو مدري هذيك أنا نصيب لك هذا إلا بابك الويز war bilaa music buu ku leeyahay war music ma haysto iska dhaaf waxaas qaad hadda buu ku leeyahay والله شو نصيب هذا إلا بابك nasiib baa masaa ku yeeshay adiguna malyuune awada malayne baare ujeedada darsare angane baare ujeedada darsare angane sheeko qosol badan ayaa ka soo raacay Soomaaliya alla leh waxaan ogaan ku weydiiyo xagga sheekada aan ka yara kayla nasanne qurubtaada taama xubnaha talantaadigooda tallaabada iyo dhaqaaqa toos goortan ku arkaba meel baad ii ka batay adman ku taabaya meel baad ka taabatay meel baad ka taabatay adman ku taabaya heesta alada meel baa taabataa xagee bay ku taabataa kulley heesta wax iskala afburiye laxankana isagaa iska lahaa kulley abwaanka iga wanaagsanaan ka jawaabo meesha la taabta isaga laakiin anigu waan qaaday wad qaade sanadkee qaad waxaan qaaday 2004 laakiin 2004 xag soo wareegtay maraha sideesan ha bal heesta sano ciyaaran dadweynaha iyadoo bilaa muusiga marka hore talmoon quruxdaada taama xubnaha talantaaligeeda tallaabada iyo dhaqaaqa toos goortan ku arkaba meel baad ii taabatay hadmaan ku taabaya meel baad ii taabatay meel baad ii taabatay hadmaan ku taabaya woof meel baa ii taabatay hadmaan ku taabaya xagee bay talo taabataa qurubtaada taama xubnaha talantaadigooda tallaabada iyo dhaqaaqa toos goortan ku arkaba meel baad ii ka batay adman ku taabaya meel baad ka taabatay meel baad ka taabatay adman ku taabaya meel baad ii taabatay meel baad ii taabatay adman ku taabaya talmoon qurubtaada taama xubnaha talantaadigooda tallaabada iyo dhaqaaqa toos goortan ku arkaba meel baad ii taabatay adman ku taabaya meel baad ka taabatay meel baad ka taabatay adman ku taabaya meel baad ii taabatay meel baad ii taabatay adman ku taabaya waayahay waxaan umaleyn heestaas dad badan ay weli madaxa ruxayaan waxaan rabaa inaan ku weydiiyo riwaayadii kugu horeysay ee aad ka qayb gashay tee ahayd maxaa soo karaysaa ha markii hore horta kooxdayda deegaan googos iyo waxaasan dhigi jirin markii hore war waxaan idhiniyo googoskaan ka baxno riwaayado dhan aan dalacno aan u dalacno bandadu waa step by step waxaan sameynay riwaayad la yidhaahdo jacaylka fildaabis male eryadana waxaa iska lahaayeen riwaayadda abwaan caws oo ahaa guddoomiyaha deegaanka caws waa nin balay abaabulka riwaayadaha yaa ugu horeysay riwaayadan oo aan dhigno 2001kii bilowgiisii ahaa 12 sano laga joogaa markaa waaya jacaylka fildaabis male baa la oran jiray heestee ka qaaday waxaan ka qaaday heeso badan baan ka qaaday تيكو معنا من نص عبا دمر وشيكة بدنه بل هيك نقول
oo waa rag iyo dumarka xafiltamayay waaya gabdhuhuna waxaa leeyahay dayaxii baa la tegey haye annaguna waxaan leenahay war dhulkii baan joognaa dayax ma tegni haye yaa waaya war ma ogidiin bay leeyihin iyagu haye markaasaan lahayd dumaroo sheeko badan haye shirkadda hadalkaa tihin shirkadda hadalkaati ha Haye. weli waxay ku doodayaan mataqaanaa ha inaan madalkaan iminka aan xitaa soo sharaxi karo waaya yaa waa la sima yahay waaya marka hees baan ka qaadaya halkaa oo dumaroo sheeko badan ee shirkaddii hadalkaa tihin shaydaan baad walaalatihin shaydaan baa warsin Ah. oo cod ahaan si loo dumarow sheeka badani shirkaddii hadalkaa tihin shaydaan baad walaaltihiin sharkiina dunida rogay shaydaan baad walaaltihiin sharkiina dunida rogay inaad shirka qayb gashaan oo guddiyo soo sharaxataan sharcigee idin fasaxay sharcigee idin fasaxay waaya meelaad weli inigu fikradu lahayn gabadhii waktigu shashada uu ka jabiyow maxaad sheegteen horta iyagaa naga samaysanaya iska dayo shabeelkii riyaha markuu sheeda kaarka shalowga iska tuura oo nabad baan sheegnay walaal shimbirihii ciyaayay isku shareeray cirkow sheekadu halkay mari waar sharshaari inaan la hadalno warka shiila uma baahnin shuhuuraan u dhaqaaqnay oo dayaxaan ku shareernee show garani maysaana ayaamay shalay ahay shabaduhu habluhu inay shareertaan sharaftooda weeyaan shalay maata hamoodina shaqadhiina yaraysta waar shiishkaa meel ka haysto shiki bay dugsanayaan dumarow sheeka badani shirkaddii hadalkaa tihin shaydaan baad walaaltihiin sharkiina dunida rogay shaydaan baad walaaltihiin sharkiina dunida rogay dumarow sheeka badani shirkaddii hadalkaa tihin shaydaan baad walaaltihiin sharkiina dunida rogay shaydaan baad walaaltihiin sharkiina dunida rogay inaad shirka qayb gashaan oo guddiyo soo sharaxataan sharciga idin fasaxay sharciga idin fasaxay dad badan baan u malaynaya inay riwaayadaasi daawadeen waxaan bilanku weydiin mar walbaba kooxdan deegaan sidee isu abaabsheen ma dowladda idin maalgelin jirtay xagee dhaqaalaha laga keenaya kooxda deegaan waa koox private ahayd inkastoo koox ay dowlad ay jirtay sida kaalmaris oo kale gacan macaan xarbi laakiin anagu koox iska private aan ahayn oo maaragtani iskood u shaqaysta bal ahaan ayaan ahayn oo markii shirkii carta waagii ayaa horta aqoonsi aan helnay aad u badan shacbiga soomaaliyeed oo waqtigaa heesa badan aan ka qaadayno tiro badan soomaaliya toosiyo waqtiga kadib baan isku abaabulay inaan riwaayado iyo annaga unbaas abaabuli jira oo meel waxaan iska lahan jira caadiyan oo siyaash ah oon ku samaysan jirnay riwaayadaha fanaaniinta xitaa qurbaha ka yimaadana waan soo dhaweyn jiray sida xasan samatar oo kale degeynay digfeer faaduma haldhaa anigu wadanka the first baan ka hayn macnaha kooxda shirka cartaba shirka carta wadawaan waayahay barnaamijkan kooxda deegaan halkaan ku dhaafnay saaxiibkay qadar axmed tafdirihii xariir wuxuu leeyahay xagga jabuuti waxaa aad loo xiiseynayaa heesta wankayga cabdow hanaaxin wuxuu leeyahay malaha heestaas waxay ahayd heestuu saabsadayba oo jabuuti uga soo baxay xase wado dad badan reer jabuuti dad badan reer soomaaliya arrintaas aad bay u xiiseynayaan adigoo aan ka meermeerin
heestaas maxay ahayd ma anti baa heesta maxaad ula jeedeen عاد سو سؤال واحد بدن وين الدالسي هسه حس كلها أفقر يلا لا afguriye آه laxankana لحق السجال لحق ما يعود بلها daawud al masxaf أيا لها waaya 2006 كذا هس كلا سبي waaya لكن واحد قاضي لبكون إياه سجالكي waaya مر أنا بدل قصة نقول هركيسان مدة أنجوي waaya يعني لو غيره ما في الجنة يو أبوك حسوس تهستي وهسه قاب كده haye يا waaya يعني هستي بنقاضي waaya markaan hasta qaaday baa heese badan ku jirtaa weliba dee qaaciyo fara badan waaya mid lala fadhiyo oo gabiile news iyo wax qora ha raggan afnishaarada unbaa markiiba soo geliyay internetku leeyahay heestaasi waa hees yani mucaarada ah oo lagu sheegayo waxaan kaasade waaya ya waaya laakiin de adiga waa kanaysaa heesta abwaan baa ku dhiibay inay ma ogaan macaarata karo laakiin wax maclan kara dee ninka heesta sameeyey dee ha marka adiga heestood qaadeen waan qaadnay maxay saameyn ku yeelatay saameyn weli markaa wadankii aan ku noqday unbaa shacabkii oo dhan war maxaa samaysay war maxaa kala samaysay cid alle cid soo raadsatay cid wax ma jirin haba yaraatee ha ha laakiin waxaa la yidhi ninka jiifkaaga ah xitaa ha xilkiina wax maaday ya ninka jiif ku ahaa ha oo dee faahin sida caadiga ah sharciyan gunooyin bay ka qaataan dalka waxaa la yidhi laakiin ninkaas aad buu igu degdegay isagona waxba hubsan buu isagu maartaan qaraarka iska qaatay oo ka joojiyay dhaqaalihii mushaadkii wixii markaan weydiinay wuxuu yidhi shaqaalaha dhimay warda shaqaalaha la dhimay mar hore maxaad loo dhimi weydaan ku yidhi mogta waaya ya waaya markaasuu ku leeyay shaqaalaha la dhimay de waan badan lahay marka horeba gunaha la wada qaadan jiray ha ya ha maadna wada dhintid haye adigu baa goon lagu abbaaray ha marka isagu waxa de anuma malaynayo de ama wax meelo kale kasoo fuliyay nin isagu de go-aan iska gaaray ha ya nin isagu magaalada u shidan markii hore heesta soo baxday waxay soo qoreen warshada qaar cumar cabdishaac al-sharmaa ku ha socotaa qaar baa marna qaar waxay yidhahdeen ismaaciil umar geeri ku socotaa laakiin heesta markaas si u fiirso heesta un antacanti waxaan kaaga waanin jiirka wadaad baa reerka joogo ya waxaan ka xasuustaa goanku mar uu ii macnaynayay mar wuxuu ka matalayay macnaha wuxuu yidhi laba wan baa jiray laba wan haye midna weyd buu ahaa buu yidhi oo baktiyey haye midna wuxuu ahaa wan buura oo shilis ha dee maalmaha ka mid baa waxaa la yidhi reerkii baa guuraya waaya kii buu raaba intuu soo socday wuxuu yimid kii weydiyey markaasuu ku yidhi waniyow reerkii baa guuraya maxaad yeeli haye adigana ma socon karaysid haye maxaad yeelaysaa ku yidhi haye markaa buu yidhi reerku miyuu hayaamayaa ha mise wuu yardiga roganayaa haye meel dheer buu macnaha tegayaa watiga yamsi oo meel un mise meel yaroo dhow dee oo u ayuu guriha tegayaa geediga ha markaasuu kii buu raaba oranaya wankii haddii anu labadaba aan socon karo meel dheer iyo meel dhowba maba sii wareysan buu yidhi haye ha adu ninkii adigu weydu adiga ku daranta un haa wankii baa dee subaxii hees soo nasiibkiisii waxa lagu qaaday awr awr haa meeshii kalaa la degay dee meeshii cusbeed haye isagoo meelaha iska laaban buu wuxuu maqlay reerkii oo leh caawa waa inaan wax qalano maadaama meel cusub aan soo degnay haye ya haye kii weydaa tukubaya dee soo tukubaya kii buu raabo imanaya haye waniyo reerkii caawa waxbay qalayaan waxbay hadal hayeen waxbaan qalanayna bay leeyihiin waaya waaya caawa balesalaale caawa oo ugu soo socdaa haye markaasuu leeyahay reerku ma miyay shiraysanayaan mise way sadqaysanayaan haye ya haye kor haddaan buu yidhi labadaba aan midnaba aan lugaan gelayn ha waxba laga eegay maba sii wareysan buu waa jawaabtiisii shalay siiyey waaya marka wankii weydahabaa heesta qaadaya isagii baa haye oo le wankayga cad oo hanaaxin weyda hadda lagu baxaaye weyda hadda lagu baxaayo barurti wadkaaga wey ururta wadkaa wey waxaan kaaga waani jiirka waxaa kaaga waana shirka wadaad baa reerka Wadaad baa jooga reerka wadaadka iyo wanka lama kala karo ha ha wardigii waxyaa hilbaysan waa helbaysan indhaha wuu ku weeciyaay inaa ku ciyaay ayuu wacdalaaf ku sheegan Ayuu wacdalaaf ku buka sheegan. iyuuna ku sheegan Ku sheegan. wanka sidaa dhagaxa cadle ya ha si aad cadqaba lurkiisa sida waa caqabad lugtiisa warmaha daran u afaystay warmaha darna waa afristay wacdooda uga badbaado wacdooda ugu badbaado adoo gudan waajibkaaga adoo gudan waajibkaaga in waxtarkaaga muuqan ayuu waxtarkaaga muuqan taasaa waxay galaysaa markaa ha tii biniaadanka awal wan baa ka sheekeynaya ha ayuu markaa u waxtarkaaga leeyahay yani haddaad adoo xitaa waajibkaaga gudanaya ha in waxtarkaaga ayuu waxtarkaaga muuqan yaa la oran de war calasow war wax buu qabtay yaa waa lagu waayi de wey macnaha waaya dad gacan ka dheeray sida u egtahay de ha u egtaha Ah. intaan heestii dadku iyadoo Aha. aan maqashin qaaciya bal in yar noo qaat iyadoo
wankayga cadow hanaaxin wadaada lagu baxaaye barurtu wadkaaga weye barurtu wadkaaga weye waxaan kaaga waanin jiirka wadad bareerka jooga wardigu waxyaa hilbaysan indhaa uu ku weeciyahay ayuu wacdalaaf ku sheegan si aad wacad qabe lurkiisa warmaa daran uu afaystay wacdooda uga badbaado adoo gudan waajibkaaga ayuu waxtarkaaga muuqan wadkaaga weye wadkaaga weye barurtu wadkaaga weye intuu wasamood baryaayo ama xaqu wehelhelaayo warkaayuu kala cadan waya xasan halka iyo jooji fanaanada nimca jaamac reer Djibouti maamada Djibouti ayaa qad ku jirta telefoonka kowde sheekan kuu qarnayay bal nimca aan weydiiyey nimcay dadna maqlayso heestan wankayga cadow hanaahin ee xasan wada u qaada fanaanad weyn baa tahay waxay kula muuqataa anti waa sidii marka dhageysta heestan maxaa kaga soo baxay horta marka u horeysa waxa weeyaan dadka oo dhani hees ama ku macaarida ha ahaado ama ku maxaafida ha ahaado wixii la qaadaba xagga ay jecel yihiin bay u duwaan waaya fanaaniintii waxaaba ku dhacday wax alla wixii aad qaadidba haddii meel alla meeshay dadku jecel yihiin loo duwayo dee halkeed inaan la iska aamustaaba la qaatay wanka naaxay iyo rida naaxday iyo waxa naaxay waxaa oo dhanba haddii la sheego dhanba loo duwaya waxa weeye dadku ina waa maxaafid ina waa macaarid siduu jecel yahay ha uu qaado hees qurux badan oo wanaagsan weeyaan aad iyo aad baanan uga mastuur markuu xasan qaado wuxuu ku leeyahay anigu heesta markaan qaado unbaa gunnada yartaa laga goosto mayo waxa weeyaan hees qurux badan nin cod qurux badanna qaaday dee ninkii isagu nacaya iyo ninkii jelasa isagaa garanaya laakiin heeska ayuu fiican yahay uu qurux badan yahay annaga waan qaabila heeska waa mahadsan tahay nimca jaamac thank you wankayga cadow hanaaxin wadaada lagu baxaaye barurtu wadkaaga weye barurtu wadkaaga weye wankani cadow hanaaxin wadaada lagu baxaaye barurtu wadkaaga weye barurtu wadkaaga weye wadad bareerka jooga wardigu waxyaa hilbaysan indhaa uu ku weeciyaye ayuu wacdalaaf ku sheegan waxaan kaaga waani jiirka wadad bareerka jooga wardigu waxyaa hilbaysan indhaa uu ku weeciyaye ayuu wacdalaaf ku sheegan siyaad wacad qabe lurkiisa warmaa daran uu afaystay wacdooda uga badbaado adoo gudan waajibkaaga ayuu waxtarkaaga muuqan wadkaaga weye barudu wadkaaga weye dhegeystayaal intaa ayaynu kusoo gabagabanayaa qaybtii labaad ee barnaamijka dheer ee xasan wado aan uga wareysanayo taariikhdii fankiisa hase yeeshee waxaan idiin soo wadaa qaybo kale oo xiiso badan waxaa barnaamijka iga gacansiinayay taftiraha xariir news qadar axmed iyo websaydyada saylac.com iyo caasimada.com waa axmayare iyo rooble oo anigoo daahir cali socde leh ismaqal dambe oo xiiso leh intaanu kulmi doono barnaamijkan la mid ah radio waaga cusub Mel batita batay
adduunku taageero
hasin bilada nabadgoli jacaylku meel baad itabatay meel baad itabatay hadman ku taabaya meel baad ka taabatay meel baad ka taabatay hadman ku taabaya meel baad itabatay meel baad itabatay hadman ku taabaya meel baad ka taabatay meel baad ka taabatay